marna taliyaan soo noqday mar askari caadi aan ahaa marba meel bay ahayd waan soo koobayaayo taariikhdeeda hadda intaasan kusoo koobayaa anigu hadda waxaan ahay taliyaha saldhigga kontaroolka galbeed ee Garowe waxaan hadda aan ka hadlayo xanuunkan waxay ugu dhacay 2016 bishii 8 ayaan gabadha guursaday gabadha aniga xanuunkan ka qaadato waxaana iska helay xanuunka 12aad isla sanadkii gudiis marka waxaan rabaa intii ka dambeysay sidii wax u dhaceen inaan maartay warbaahinta la wadaago ummadda Soomaaliyeed ay dhageystaan qofkana waxa fiican in maartay wuxuu u nool yahay dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummadiisa marka marna ma doonayo in aniga wixii soo gaaray digniin inay noqoto kale kuwa hadda qabo kale siday fursad u heli lahaayeen yaa kala fursad iyo ka banaan tahay macnaha hadda waxaan aniga tusaale ahaan haddaan soo qaato dadka qaba xanuunka waxay dhan yihiin 11700 marka haddaan anigu taariikhdeeda ka soo hadlo gabadha waan guursaday waa dhistay waan aroosay magaalada dhinac ka dib adigu muddo 3 bilood markaan qabay ayaa xanuun baan dareemay jirka ah oo nafsiyan oo maartay anigoo maartay cuntadii soo celinayo xanuuno badan baan horta dareemay haddii xanuunkaas muddo aan sida ahaa waxyaabo badanna waan arki jiray oo maartay gabadha oo dawo cunaysan arki jiray marna uma qaadan inay xanuunka iyadu la noosho ana marna uma qaadan laakiin waxaan u qaatay waxyaabo kale waxba igu soo dhici jiray kale waxaan arkay maalin baan hataa baaray fiiriye kaniin baan arkay kaniinka muxuu yahay baan iri waxay tiri waa xasaasiyada la cunaa weligeena ma arag kaniin aan arkay maayo marna ma soo dhigan cudurkaanaba meesha maartay sida macnaha faham la'aanta ugu qabay baan waxyaabaha keenay ka mid tahay inaan TV imaado soo fariisto ummadda islaamka oo dhan u sheego haddii saa dhacday markii anigu malahayga waxay noqotay inaan israada uur bay iska ilaalinaysaa ma wax saas jiro arrimo noocaas kale xagga dhinaca kale u qaata marna uma qaadan bishii 12aad ma habeenada ka mid ah xanuunka soo ritay anoo ka maqan gurigii bay gabadhii hal mar guurtay boorsadeeda guriga uga tagtay xanuunkana waa ay hayaa haddii subaxdii aan guriga imid waxaan u imid boorsadeeda keliya guriga taala waa wacay oo maxaa dhacay baan iriyo saas arrintaas maxay ku dhacday kelmadda iigu jawaabtay waxay tiri waa xoogaa hadal baan dhex maray markii hore waxay tiri adiga sidaas waad dhimanaysaa bay tiri waad dhimanaysaa waa sumaysan tahay wax adigu hadallo badan baa uma qaadan marka aniga inay maartay xanuunkaas nin baa ila joogay markii la socday sarkaal asna oo rabnay guriga inaan quraaciyo markaas shaqana markaa ka tagnay ninka waxaan ku irniyo hadalkaas ay leedahay ma gaariga wax noogu xirta ma waxbaa jira see waxyaabo kale markaas qalbiga ku soo dhacay markaas yorniyo haddii saa leedahay anay xanuunka qabtaa ninka hadalkiisii baani horta waxay galiyay iyo xanuunka i haya oo halka laabta iga haya dabadeed waxa dhacday inaan iska soo tago boorsadeeda meesha ka soo qaatay reer kalaan lahaa reerkii kalaan imid habeenkii si fiican uma seexan waxay maadaama ninna hadal igu yiri ayadana hadal igu tiri wixii waan fahmay hatta gaari waxbaan ka barbaaray wax ka jiraan kale waa gabadhii xaaska kale waxaan ku yidhi oo caruurta guriga joogtay gabadhan caruur ima hayn waxa dhacday waxaan ku yidhi inay caruurta jirtaan u maleynaya khayr bay noqonaysaa waxay tiri khayr bay noqonaysaa waxa dhacday subaxdii markuu waaga bariyay oo 9 subaxnimo ay tahay baan anigu tagay isbitaalka ma aqoon meesha la iska baaro waxa dhacday waxaan bixiyay $1 waxaan iri waxaan rabaa dhiig inaan shuba haddana ninkii dhiigiga qaaday waxaan ku yiri war xanuunkaas aan iska baaraya
dhiig shubadii waxaan u bedelay inaan ninka war xanuunkaasaan iska baaraya iga baarinayo waayahay yiri mishinkii wala aad nin garanayo ahaa dhalinyaro ah wuxuu sameeyey waqtiga igu daahay saan ku soo noqday waan fiiriyey waxa sameynaya ninkaas dhalinyarada dad iga dambeeyay oo dhiig laga qaaday waraaqii siinaya anigana xogaa dib ii dhiga waxbaan dareemo marka culaysna halka ka jiro ayaan dareemay marka waan u tagay waxaan ku yiri warniyo nin iimaan kala ma ahiye qof islaam aan ahay wax kastana qadarta rabbina waa kalsoonahay maxaa aday wax jiraan ma ii sheegtay ana waxaan ku weydiisay waa garanaysaa ina keen biir gacanta qabtay warqadina gacanta soo ku wada ima dhiibin markaan sii socono oo maartay meesha ajayfiga lagu baaro xaqiisu ila dhaqaaqay anagoo soo socono wuxuu yiri wahal waay marka niyo waxa weeye ilaahay baa wax walba keena waa hadallo maartay waa dareemaysaa qofka maartay dajin oo ah buu xaqaas waxaan waxaan ku wareede horta ay kala cadee been ku sheegay markii intuuna wax ii sheegay waa baqay waa cabsanay warka markii la qarxiyay iyo markii kale laba ay ahayd waxa dhacday ninkii wuxuu yiri waa positive waa qabtaa laakiin anaga keena mid ka casirsan halkan yaala oo laga baaro dadka oo caadi oo xafiis u furan buu leeyahay igeeba inuu meeshu igeeyay waa laga qaaday 3 waxyaalood baa lagu qaaday test ah 3 waa laga helay dadkii waxa la yirsan weeye u kaadi waa adigu markii maskaxdeeda waxa ku soo degdegtay laba maado gabadhan magaalada ku jirta habeen hore ay guriga ka tagtay magaalada wali joogtaa ma tagin iyo xaaski kale labadaas ay ugu soo degdegtay maskaxdeeda ku soo degdegtay laakiin inuu xanuunkaas ku dhacay kale culayska fuulay uu kamid ahaa bas yaa marka wakiil ku abaal lahaa qofka marka ugu horeyso oo maartay cudurka laga helo qof inuu wakiil ka yaa fiican nima ilmaadirna magaalada joogan u yeeray waxaan gabadhina soo qaad xaas kale waa la keenay negative value ilaa cilmigiisa marka waxa jiray muddo 3 bilood xaaska markaan guriga imaado xanuun baa iska kahayay xanuunka marka ma garanayo laakiin 3 bilood gabadhan ismaan aragba laakiin inta qabay dhowr jeer baan aragnay waxaan niyada markaas iri waa kulli waa in laga helayo negative value 3 bilood ismaan arag gabadhan waxa dhacday negative markii la yiri gabadhii xaaskaygii caruurta ay dhashay hal kelmad ay tiri kelmadda horta aniga ugu horeyso markii ugu horeyso oo qofka idajiyay lambar 1 ayada ahayd waxay tiri shirow dadkana ma dhiftid ummadana dib uma horseedid wax wanaagsan baad ka shaqeysaa inta badan intaan kugu aqaanano waxaan u maleynayaa bay tiri in ilaahay ku daraan maye istaji xanuunka aqabtid ana meel igama maqno waxa igu soo dagay marka qaab si automatic markiiba waxaan xasuustay markii suurada ooraysa nabi maxamed lagu soo dajiyay iqra lagu soo dajiyay ayaa waxaan xasuustay kelmadii qadiijo ku tiri bas salaad sunnah tukaday waxaan sameeyay gabadhii waan iska diray anigu waxaan sameeyay marka warqad message oo fariina baan u diray gabadhii xanuunka la ahay gurtay markaan u diray waa meesha kaliya maskaxdaan ka shaqeysay meesha kaliya oo gabadhaas ku qaban kara weeyaas waxa dhacday gabadhii message baan u diray message markaan u diray waxay tiri waxaan iri lacagti meherka ahayd baan ku hayaa lambarkaadana sahal ma leh ayada cadaan gacanta ku haya xagee kugu imaadaan inaan qabto qorshaygu wuxuu ahaa inaan qabto saa ujeedkayga marka dee waad garanaysaa qof wax ku cusub yihiin ana ma fadhiyo inkastoo iimaankayga iyo caadi xaaladayda caadi tahay haddana
maantii hata xoogaa ma seexan jira ma seexan waxay tiri galabta isukaayo keen halkaa iyo halkaa okay baan weliba waxaan kaa rabaa bay tiri lambarka sahal ima leh inaad sahal ii furtid waayahay baan idhi waan soo tegey gaari baan soo kaxaystay askari baan soo kaxaystay si iyadoo maaragtay inoo ciidan la diriray markii aragtay gaarigii soo gashaba warqaddii furinka waa haystaa soo ma ahaa ina keen si aan usii wada stationka dhexaan ku tuuro stationka markaan soo geliyay waxa iyada kelmadda igala horta waxay tahay halkaa maxaa noo soo gelisay